الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta naga mudano halkan waa telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV studio koowaad ee magaalada Boorama daawadayaal waxaynu soo gaadhnay xilliga ay soo gudbin jirnay war wixii dalka iyo dibadda ayniga haynay warka caawa waxaynu soo diyaariyay wariye Shacayb Maxamed Kaahin waxaan la socodsiin doontaa anigoo ah Shubriye Cabdi Cabdilaahi balse aynu ku hormarno qodobada warka ugu doorka roolne xoghayaha xisbiga Ucud ayaa wareysi gaar ah siiyay telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV isagoo kaga hadlay arrimo dhowr ah boolis hubeysan iyo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ku qaaday xaafadda Saint-Denis ee dibadda ka ah caasimadda Paris Nigeria ayaa xaqiijisay in 32 qof ku dhinteen 80 kalena ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Yola sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee Washington ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo xidho dhammaan xuduudaha dalka Mareykanka daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadeena warka ugu doorka roole balse aynu ka hormarno qadar adeega bulshada ah muwaadin codkaygan bilan bishaaru kuusida hadduu baabuurkiiyo baskaagu cawlan yahay hadduu bahdilmo uska ka buuxsamay meel kastaba halkii bilisan arkee bishaaro dhahoo aqbala dayuur kaarwoj baleeg casrigu la yimid baabuurka dayuur dultaga inta sare loo bixshaa bir iyo waxa bool ku yaal nadiif iyo laga dhigi baro baabuurkaoo dhalaalka sida u bidhbere la qire ayaad baarkikiisa weyn ka soo bixin goor barqa dayuur kaarwoj bulshay baleeg sida loogu bogay barta air clean daskiyo baabiisa urtaad ka heli baabuurka dharaar kora wale dadku waa u bogay dayuur kaarwoj baleeg hadduu boodhkii roogii ruumiga usta taabtay beri waxaa maydhiya bildhaan nadiif iyo bilic ka dhagi waa dayuur kaarwoj waxa kugu diyaara shaqaale xirfad u leh meedhida baabuurta nadiifinta roogga iyo weliba bustayaasha haddaba dayuur kaarwoj wuxuu ku yaala waa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal gaar ahaan wadada sisibta ka dhacda wixii faahfaahintaasi dheeriya waxaad kala xiriidhaa ciwaanada iyo taleefanada shaashadadii ka muuqda bushaaro waxa lagugu bushaaraynayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama gaar ahaan bahda jecel waxbarashada in lagu furay dugsi dadka waaweyn ah dugsiga waxbarashada ee dadka waaweyn ee anfac non-formal education school haddaba waxa uu halkaasi kugu diyaariyay macallimiin tayo sare leh isla markaana garanaya duruusta ay bixinayaan sida Soomaaliga xisaabta Carabiga Ingiriiska sayniska iyo axaadiista iyo siirada rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sidoo kale dugsiga anfac qaybtiisa brefatku waxay marxaati ka tahay in lagu bari doono duruusta yale isla markaana kor u qaada cilmigaaga aqooneed Good afternoon to all people that standing over us and I'm saying hi to
Bullshit TV that made us do all of these good things. And I'm especially saying to my teacher, Yusuf, that taught me how to learn English. It's my very sisters. But today I'm very happy to create the best creator of Islam. That comes the most important of my body. It's the use of Allah over me. Good afternoon, all of you, my teachers and other high-level guests who are waiting, our friends and brothers. haddaba bulshooy dugsiga anfac waxa uu kugu bushaaraynayaa inuu ku bilaabay waxbarashada dadka waaweyn ama non formalka isdiiwaangelintuna waxay ka socotaa xarunta dugsigaasi bulshooy ballanteenu waa inaan hore u gaadhno dugsiga anfac aan ku tilmaamo goobta uu ku yaalo waa Sheekh Cali Jawhar gaar ahaan geerashka Seeman kasoo horjeedka guriga Dr. Saciid Ahmed Walhad wixii faahfaahinay intaasi dheerna kala xidhiidh telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda ilaahayna uma samayn hablaha aqal xaridiyo ilaahayna uma samayn hablaha aqal xaridiyo adeega rubtiyo dhibti cadaalada iiga mar labaad kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ayaa xisbiga ucud ayaa waraysi gaar ah siiyay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV isagoo kaga hadlay arrimo dhowr ah warkaas oo faahfaahsan waxay noo eegi doonaa wariye Shacayb Maxamed Kaahin xogayaha xisbiga mucaaridka ucud Xasan Cabdikariin Miicaad ayaa maanta mar warfidiyeenada la hadlayay waxa uu ka hadlay ka qaadashada kaarka codbixinta ee muwaadinka sidoo kalena waxa uu fariin u diray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro isagoo arrimo kale ka hadlay xogayuhu waxa hadaladiisii kamid ahaa diiwaangelinta codbixiyaasha 2016 doorashada dhici doonta waxaan leeyahay weli waxaa qabyo ka ah ama moogtahay commissionka qaranka qabyo ka ah meelay qabyadaasi jirtana welina ma cadda weli waxaa qabyo ah iyadoo aan kaarkii weli la qaadan moogtahay dhalashadii ahayd ay dadku weli si fiican wada qaadan haddana codbixintiina ay moogtahay kaarkii lagu codayn lahaa ay noqotay mid aan moogtahay weli saliiraad toona meel dhigan waxaan leeyahay haddii commissionka qaranka loo doonayo oo go'aankaasi ku moogtahay iyagu ku xayiran yihiin inay dadweynaha reer Soomaaliland u soo bandhigaan halkii diiwaangelinta codbixiyaasha ay mariyeen haddii ay xukuumadda ku maqan tahay waxaan leeyahay bankaha soo dhigtaan leenahay anagu waxaan had iyo jeer ka hadalnaa doorasho ma dhacaysaa la yiraahdaa waayo because maxay u dhaceen weli kaar codayn lama qaadan kaar dhalasho lama qaadan waxa taasoo dhan ka weyn de waxa weyn doorashada waxa lagu galay waxa ahayd warqadda codbixiyaasha ninkaanan haysan kaarkaana ma codaynayba haddii weli ilaa imika istii la qaadan waxay noo hadhana tilka ayaam waa dharaara yar oo moogtahay la tirsanayo ee xisbiyada qaranka ee mucaaradku tirsanayaan waxaan leeyahay dawladda haddii ay wax xaggooda ka siihiin dadka ha u sheegaan haddii commissionka qaranku ayna dhaqaalihii ayna gacanta ku hayna dadka ha u sheegaan anagu weli meesha ay weli bahashaasi socoto weli diiwaangelinta codbixiyaasha ma hayno xafiisyo ay furteen waxa ay aan ogeyn oo kaliya inay orientation wacyigelin sameeyeen wacyigelintii markii la dhamaystiray meel alla meel martana ma hayno waxa leeyahay taafariinta waxaan u dirayaa commissionka qaranka ama xukuumadda halka ay hawshaasi ku rigatay waxaan leeyahay doorashada la qaban doono marka codbixinta la qaato ee golaha wakiilada waxa jirtay xeer reer awdal ay golaha wakiilada kaga baxeen oo loo codeeyay ayaa jirtay waxay xeerkaasi golaha wakiilada reer awdal shalayma intii ay ku soo fadhiisteen baa lagu qabanayaa doorashada ama gobolada dhan lagaga imanaya weli golaha wakiiladu kamuu go'aan cad kamuu soo saarin xeerkaas waxaan leeyahay xeerka hadduu gudoomiyaha golaha wakiiladu ku fadhiyo hadduu moogtahay gudoomiyaasha kale ay ku fadhiyaan waxaan leeyahay golaha wakiiladu waqtigiina uu dhamaaday xaraan inagoo ku fadhiya waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Cirana waxaan leeyahay haddii aad doorasho doonayso inaad tartan gashid golaha wakiilada xeerkaas dhamaystir baan leeyahay waa fariin aan u diray gudoomiyaha golaha wakiilada ahna murashaxa xisbiga wadani وشعيب محمد كان شعيب تلفزيون كمان حبنا بولشة تي في مقالة بورما بوليس hubeysan iyo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ku qaaday guri ku yaala xaafadda Saint-Denis ee dibadda ka ah caasimadda Paris
warkaasna waxay noo qaadaa dhigi doonaa wariyayaan leh boolis hubeysan iyo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ku qaaday guri ku yaala xaafadda Saint-Denis ee dibadda caasimadda Paris waxayna baadi goobayaan in laga shakisan yahay inuu maleegay weeraradii toddobaadkii la soo dhaafay lagu qaaday Paris ee ku dhinteen 129 qof Cabdulxamiid Abuucuud oo ahaa nin haysta dhalashada Belgiumka asal ahaan ka soo jeeda Morocco ayaa baadi goobayaan laamaha amniga ee Faransiiska waxaana markii hore la rumaysanaa inuu ku sugnaa dalka Suuriya booliska ayaa sheegay in laba tuhunsanayli ay ku dhinteen howlgalkaasi ayna ka mid tahay haweeney isqarxisay intii howlgalku socday dacwadoogayaasha ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay 4 nin iyo haweeney dhowr ka mid ahaa booliska Faransiiska ayaa ku dhaawacmay howlgalkaasi saase xoogan iyo qaraxyo ayaa laga maqlayaa intii uu socday howlgalku Yaala Maxamed Bulsha TV dowladda Nigeria ayaa xaqiijisay in 230 qof ku dhinteen 80 kalena ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Yola warkaasna waxay noo eegi doonaa wariye Saxardiid ugu yaraan 230 qof ayaa ku dhimatay daraasiin kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday suuq ku yaala magaalada xarunta u ah gobolka waqooyi bari ee Nigeria sida ay sheegeen hay'adda bisha cas iyo hay'adda maareynta xaaladaha degdega ah qaraxan ayaa habeennimadii xalay lala beegsaday suuq lagu iibiyo khudaarta oo barbarka ku haya jidka weyn ee caasimadda gobolka Adamawa ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi balse saraakiisha dalka Nigeria ayaa dusha ka saaray mas'uuliyadda weerarkaasi kooxda Boko Haram oo kumanaan qof ku dishay gudaha dalka Nigeria kuwaasi oo doonaya inay ka hirgeliyaan dalkaasi shariicada Islaamka sida ay sheegeen kooxdan ayaa weerartay magaalada Yola iyagoo adeegsanaya bambooyin iyo walxaha qarxa qarax noocan oo kale ah ayay kooxda Boko Haram la beegsadeen sanadii tagay isla magaaladaasi oo galaaftay nolosha 720 qof oo ku jiray masaajid salaadii jimce kadib jimcihii la soo dhaafay ayaa madaxweyne Maxamudu Buhari uu tagay magaaladaasi Yola isagoo ku booriyay askarta inay geesinimo muujiyaan laga soo bilaabo markii ay ciidamada Nigeria qabsadeen dhul badan oo gacanta ugu jiray kooxda Boko Haram ayaa kooxdani waxa ay weerarado la beegsadaan suuqyada meelaha basasku joogsadaan iyo meelaha lagu cibaadeysto Saxardiid Xaashi Ardaale telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV siyaasiyiin sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee Washington ayaa ku baaqay si degdeg ah loo xidho dhammaan xuduudaha dalka Mareykanka si aanay u soo galin qaxootiga dalka Suuriya kaasna waxay noo eegi doonaa wariye Cabsalaan siyaasiyiin sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee magaalada Washington ayaa waxa ay ku baaqayaan in si degdeg ah loo xidho dhammaan xuduudaha Mareykanka oo aysan soo galin qaxooti Suuriyaana gudoomiyaha cusub ee aqalka wakiilada Boor ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo qaxootiga Mareykanka oo qaabilayo taasi oo la xiriirinayo weeraradii Paris Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu soo dhaweeyo 10,000 oo dheeraad oo qaxooti Suuriyaana laakiin Boorayaan ayaa waxa uu wariyayaasha u sheegay in la joogo xaaladdu ay u wanaagsan tahay in la nabad galo halkii loo dhibaatoon lahaa waxa uu inta raaciyay in arrinta mas'uuliyadda u baahan ay tahay hakinta qaxootiga si loo hubiyo in argagixisadu aysan ku dhex dhuuman bulshada qaxootiga ah golaha Kongareeska ayaa la filayaa in arrinta ay u codeeyaan maalinta Khamiista madaxweyne Obama ayaa sheegay in dadka u taariiba Mareykanka ay kol hore wajaheen hanaanka baaritaan oo aad u adag Cabsalaan Bashiir Faarax telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV daawadayaal intaasi waxay noogu dhan warar wixii dalka iyo dibadda ayniga haynay oo inoo soo diyaariyay wariye Shucayb Maxamed Kaahin warka caawa waxay la socodsiinaysay anigoo ah Shubriye Cabdi Cabdilaahi warkan warka xigay intaynu ku kulmi doono dhamaantay anagoo isku duuban waxaan igaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh